Soomaalidii hore waxay ahaayeen dad xikmad badan oo khibrad iyo waayo-aragnimo u leh noloshooda, inkastoo waxna qori jirin waxna akhrin jirin, laakiin haddana shay walba noloshooda ka mid ah aqoon ayay u lahaayeen. Shay kastana way u fiirsan jireen oo waxbay ka baran jireen. Carabta ayaa badanaa ku faanta inay haystaan kayd sheekooyin xikmad leh oo ay ka soo gaadheen awoowayaashoodii hore, balse waxaa laga yaabaa in aynu sheekooyinka awoowayaasheen ka soo gaadhnay ay ka tiro badan yihiin. Waxa kaliya ay nagaga badiyeen inay iyagu lahaayeen kayd oo ay culumtooda buug ka qori jireen, xataa ka hor xilligii aanay reer Yurub ilbixin. Halka innagu waxba aynaan qori jirin, laakiin waxaynu wax walba ku heli jirnay jiilka jiil oo midba mid u soo gudbiyo. Taasina waxay sababtay inay wax badan meesha ka baxaan ama ay lumaan. Xataa taariikhdeena inta yare aynu haynaa waxa sidee ama aynu ka keennay suugaanteenna, yacni gabayada, geeraarada, heesaha. Maantana waxay soo qaadanaa mid ka mid ah sheekooyinka xikmadda leh ugu caansan Soomaalida, waxaanay dhahaysaa sida tan. Waqtiyadii hore marka hablaha calafka guurkoodu raago ama ay heermiyaan, waxay u tegi jireen reer, kadibna waxay ka codsan jireen in nin la siiyo, yacni nin loo dhiso. Kadibna inta la iskama guursan jirin waa la jirabi jiray, yacni waa la imtixaami jiray iyadoo la tijaabinayo maskaxdeeda. Imtixaankuna wuxuu ku salaysnaa waayihii nolosha xilligaas. Haddaba 3 hablood ayaa waxaa raagay calafkii guurkooda ama way heermiyeen si ay Soomaalidu dhahdo. Kadib waxay u tageen reer kana codsadeen in nin la siiyo. Kadib reerkii waxay dooneen inay hablahan jirrabaan oo ay maskaxdooda tijaabiyaan. Kadib reerkii ayaa hablihii u keenay hilib kaasoo aad u kululaa. Kadib markii loo keenay, habluhu waxay ahaayeen kuwo meel fog ka soo socdaalay oo aad u gaajaysan. Kadib markii loo soo dhigayba, tii koowaad ayaa tidhi "Haka foofe korka saar." Tii labaadna waxay tidhi "Karan maynay inoo kala gooya." Tii saddexaad ayaa tidhi "Ha qaboobe qaboweyn ku rid." Isla markiiba reerkii oo arrinta korka kala socday ayaa waxay qaateen tii koowaad ee tidhi "Haka foofe korka saar," oo macnaheedu yahay ha qaboobe xagga sare saar. Yacni shaygu markuu kulul yahay, haddaad xagga sare saarto, hawada ayaa maraysa oo markiiba wuu qaboobayaa. Waxaa halkaa reerkii uga soo baxday inaynan tani tahay mid caqli badan. Tii labaad ee iyaduna tidhi "Karan maynay inoo kala gooya," oo macnaheedu yahay sugi maynay inoo kala jara. Taana iimaan li'ideeda ayaa reebtay, maxaa yeelay astaanta dumarka meel kama jirto iimaan li'i. Tii saddexaad ee iyaduna tidhi "Ha qaboobe qaboweyn ku rid," oo macnaheedu yahay ha qaboobe haanta biyaha ku rid. Taana caqli darradeeda ayaa reebtay, waayo haddaad haan biyaa ama weel biyo ku jiraan aad ku ridto hilib, sidee ayuu hilibkaasi noqonayaa? Xaqiiqatan wuxuu noqonayaa waxaan dhadhan iyo mactoona lahayn, xataa maba moodaysidba in la soo kariyey. Maanta sheekadani intaas ayay ku eg tahay. Waxaan sidoo kale sheekada ka faa'iidaysanaynaa in aanay baahidaadu mar walba ku hoggaamin ee ay ku hoggaamiso maskaxdaadu. Shay kasta inaad duleedkiisa eegin ee aad guntiisa u dhaadhacdo. Muhiimaddu maaha inaad shayga u qabato siduu adiga kula muuqdo, balse muhiimaddu waxa weeyaan inaad u qabato siduu yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.